munaasabadan oo lagu sagootiyay difacadii saddexaad ee ka qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay hotel Daalo ee magaalada Burco waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay difacadii labaad ee ka baxda isla markaana ka qalin jabisay barnaamijka shaqo qaran iyadoo ay ka soo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo difacadihii kala duwan ee ka soo qalin jabiyay barnaamijkaasi shaqo qaran ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah difacadii labaad ee soo qaban bisay munaasabadan iyo sidoo kale difcadihii kala duwan ay ka soo qalin jabiyay barnaamijka shaqo qaran waxaana talo iyo tusaale siiyeen ardaydaasi sanadkan ka qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran oo gobolkii waxaynu sideynaa in Soomaaliland laga dhawaaqay sharaftiisa iyo milkihiisu idinku idin saaran yahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay ku soo dhawaada shaqo qaran waxa koobaad ee lidiga xasidaan sharaftii iyo milkihii gobolkan Togdheer lahaa dufcadii koobaad iyo tii labaadba waxaanu kaga nimi dufcadda waxaan kaga nimi akaademiyada shaqo qaran sharaf weyn baanu kaga nimi haddaan nahay gobolka Togdheer midaan kula dardaarmaya ugu horeeya waxa weeye horta inaad gobolada kale markay idin yimaadaan iyagu way ku xisub yihiin oo marka idinka la sii qabsanayeen in ayaga si fiican u soo dhaweysaan oo dejisaan oo nidaamku sheegtaan laakiin waa inaad sameysaan inaad gobolada kale dhex gashaan sidaynu ognahay ama aad ogtihiin ba kulay labada gobol ee gobolada bariga iyo gobolada galbeedku way kala horeeyaan waxa horeynaya doorkan gobolada bariga horeynaya berigii hore anaga waa naga soo horeeyay waxa naga soo horeeyay gobolada galbeedka iyagoo maalin meesha sii joogay oo la qabsaday oo nidaamkeedii oo dhan fahmay baan tagnay qiimaha badnaa waxa kamid ahaa inay darweyna ka sii sheekeeyaan xaflad sidan oo kale ay qabteen xafladda ay qabteenna xog badan aanu ka helay waxa loo baahan yahay in la sii qaato inagoo ixtiraamna waxyaabo badan markaan halka tagnay waxaan ka garanay gobolada kale inaan wax xog la soo siiyay wax information aan la sameeynin tanana waxa aynu mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadnaqnaa saynu hore u sheegnay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo lahaa fishinka iyo missionka labadaba barnaamijka shaqo qaran iyo gudoomiyaha guud barnaamijka shaqo qaran mu'adin hadda labaad waxaan u celinayaa raggii soo qaban qaabiyay xafladan aynu halkan u fadhino oo ahaa dufcadii labaad ee shaqo qaran oo maray wadadii aanu marnay waqtigii ama aanu maanto kale caawo kale halkan iyagana aanu ku soo dhaweynay oo la joognay subaxiina aanu sii amba bixinay iyaguna wadadii halkii ka sii amba qaaday oo caawa dufcadii markaa nagu xigtay iyaga ku sii xigtay iyaguna halkan caawa ku soo dhaweeyay iyagana waanu mahadnaqayaa oo mahadsantiin maamulka gobolka iyo maamulka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee halkan inagala jooga iyagana waanu mahad celinayaa laakiin nin walba ilaa go'iisa inuu hagaajisto sariirtiisa inuu hagaajisto kayuubaad galaysaa marka kolay nolol aad hadhow wixiisi doontaan oo dhalinyaro isdhex galayso oo aad hadhow is odhanaysaan jawiga horta meeshuna jawi aad u macaan bay leedahay jawi fiican bay leedahay waqtiyada roobabka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wanaag kaga soo baxdaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Aydiid Maxamuud Ciise ayaa iyaguna la dardaarmay ardaydaasi marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynaa ardayda dufcadda saddexaad ee ku guuleysatay inay qayb ka noqdaan dufcadaha shaqo qaran ee gobolka Togdheer imtixaan baa la mariyay process bay mareen wixii kale dhamay dhicina dawada dadaalaan intay noo soo gudubtayna way noo hambalyeeynaa inta markan ka gudbo halkan waxa ku qoran shaqo iyo qaran shaqo iyo qaran waxa lagu tala galay inaad qaranka u shaqayso ardayda shaqo qaran labadii dafcadood hore ee sagootintan xafladan munaasabadan caawa u sameeyay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii suurta galiyay maskaxdii ay ka soo maaxatay ahaa in caawa halkan aynu isugu nimaadno ardaydan shaqo qaran ee dafcadda saddexaad aan ku sagootino waxaan filayaa wixii dardaar ahaa iyo wixii talo ahaa waa la siiyay Khaliil Barra